السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحب يلوان إذن سلامي ميل كستو الدنيا دعالة كتوكتان waxaan aad iyo aad runtii idinka raali gelinayaa muddo badan oo channel keenan ka maqnayn imikay haadana isku soo noqod wanaagsan aan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad ba asxaabtayda qaaliga aad iyo aad baan runtii ni raali gelinayaa waxaan rajaynayaa inaan insha Allah kanaal keenan horumarin doono barnaamijyo runtii aad iyo aad u xiiso badanna aynu soo gelin doono maanta barnaamijkan ka hadlaynaa sida ciwaanka ku soo aragtay waa qaadka iyo dhibaatooyinkiisa qaadku waa moogtaadani geed aad iyo aad u xun oo qof waliba og yahay xataa kan isticmaalaya og yahay dhibaatadiisa iyo sidoo qofku u dhibaataynayo haddana waxa la yiraahdaa waxaad barataa balaaye ah haddii nacam wax barato sida ugu hadhaawa adag tahay balse maanta halkan aynu ku garfayn doonaa maasa ka hadlaysa dibkiisa iyo bal sidoo u dhibaateeyo qoys iyo qaranba insha Allah ku soo gudbin doonaa waxa ku bilaabmaysa dadkan qaribanaya lumay qaadka waxay yiraahdaan waa qowl xalaalo qalbigu sifeeya niyadu qabooja oo waa qowtul awliyo nacam qofka cuna hadii aad weydiiso oo ku tiraado waxaan saameyn togan iyo toosan buu kugu yeelanaya iska dhaaf wuxuu ku oranayaa ma chatkaad caayisa chatku waa wixii dhanaay moogtaan ku shaqeynaya shidaalkii dhanaa hadduu quud wax tari la ama qowtul awliyo dadka qaar ku sheegaan bal waxaad qiyaastaa quruumaha horumaray ma wax qaad cunaa jira tusaale yar Mareykan balwada aad u xun bay adeegsadaan ama waxay adeegsadaan waxyaabo aad u moogtaan mukhadaraad ka daran chatka laakiinse qaadku waxyaabahu kaga dugan yahay waxyaabaha mukhadaraadka wuxuu yahay mukhadaraadka kale wax in yar oo kooban bay ku aynayaan waana ka baxayaan laakiin qaadku waxa laga yaabaa in hurdo la'aan uu ku dhigo inuu dhibaato ka badan ku gaarsiin inta kuwan kale ku gaarsiin lahaayeen Allah ayo muxuu qaxar qalalaase iyo hoog inoo keenay qaadkii muxuu qoys dhisnaayo qiimiye wanaag badan kala daadiyo qobay maxaa laba isqabi jiray qol dugsoon u hoyan jiray habeen qoora ku kala tagay isu diiday qaadkii qof duleeye weeyaan qoys buriye weeyaan qaran dumiye weeyaan oo nacam laga wado nin maanta guri ka soo kacayay oo moogtahay sharaf ku lahaa oo ahaa nin laga amar qaadanay oo ahaa nin ay naagtiisu adeecayso oo ahaa nin qiimo leh oo guriga qof ka xisaabsanaa mas'uula ayaa markuu qaad ka barto gurigii uu mas'uulka ka ahaa bay ilaawaya mas'uuliyadii oo dayacaya oo garamaraya moogtaadaanay mas'uuliyadii alla u igmaday nin ahaaneed qaar baa had iyo jeer qoraxdiya kulaylaha iyagoon qadiin wali ku qaylo gidaarada caliyadii ka qabataa ku qalalan afkoodo afqashuushlayaashiyo qooshaaro weeyaan ninka qaadka rooga nin la qaatay weeyo shaydaan qafaasho qurusku shaqaystana qoys iyo caruuriyo uma qoodho reero ubadkiisa qaawani qada kama helaano qayduga ma iibsho waa geed qalaado ma qaboojo gaajo qofna kuma cayilo oo waxay qolo wadaagaan dariic iyo qisliin iyo ka kitaabka qorane ehlu naarku quutaan waa cadow qarsoono ka qaada sharafto qashin iyo urweeyaan ka meedho quruxdo qalbigu dilaya qulubtu wareeriyo qandho weeyo cuduro maskaxdu qalaliya dibkiisa qasaaraha ma qiyaasi karaye naga qaba Allah ayow mar walbaaba way wanaagsan tahay in dib haduu kugu dhaco aad xagga Ilaahay u noqoto oo waayo waxaad haysataa awood ka weyn awoodda bini'aadamka inta